بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنا نستعين على امور الدين ودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته magacaygu waan tirsiid xuseen waxaan kugu soo dhaweynaya xarunta baafo waxaan soo bilaabnay barnaamijkeena yahay Excel accounting 2024 waxaan taagana warqaday ku qoran tahay L2 waa casharka labaad ee kooraska casharkan wuxuu ku saabsanaa doonaa inaan introduction amba faahfaahin guud aan ka bixino barnaamijkan Excelka waliba versionkan hadda ugu dambeeyo 2024 aniga already waxa ii furan Excel file markii aad furaysid barnaamijkan Excelka meel badan aad ka furi kartaa hadii already mid uu ku furan yahay waa iska fududahay file ayaa taabanaysaa inta wax ka dambeeyana waxa taabanaysaa new kadib waxa sii qaadanaysaa midkaan ay ku qoran tahay amba blank workbook oo in mid cad amba file cad inaan rabnay Excel inaan furano qaybta hoose da firisid templates ayaa diyaarsan oo lagu soo diyaariyay marka blankigaas hal mar gujinaya aniga waxaan rabaa mid cusub inaan hal mar furo qaybta kore da firisid buugwana ayaa soo muuqanaya barnaamijka Excelka way hal warqadna wuu ku soo kacaya by default sida caadiga kor ayaan ka xirayaa sidaas la mid ah waxa sameey kartaa haddii uusan barnaamijka Excelka uusan ku kacsaneen start buttonka hal mar gujinaysa kadib meeshaan aad ka raadinaysaa Excelka dabcan meeshaan ayuu ka soo muuqanayo scroll barkana waa jiidi kartaa haddii meelaha hoos uu kaaga jiro haddii aad arki lahayd qaybta search waxa ku qori kartaa Excel si uu soo saaro automatically hore ka soo qabanaya Excel app hal mar haddii aan gujiyo isla markiiba hore ayuu ka kici doonaa haddaba Excelka markuu kaco waxaan u baahanahay filekan inaan save gareyno si uusan nooga lumin waa inaan hard diskigeena aan ku save gareyno haddaba marka save gareynaysid meel badan ka save gareyn kartaa inaa buttonkan yar ee qaybta kore aad taabatid oo save keyboard shortcut ayaa isticmaali kartaa oo control s na taaban kartaa ama waxay imaanaysaa file inta wax ka dambeeyo save amba save as bacdama fileka uusan save gareysnayn save ama save as isku si ayay u shaqeynayaan bal waxaan taabanayaa save ayaan taabanayaa kadib wuxuu weydiinayaa meesha aan rabo inaan ku save gareeyo ma online ka rabaa inaad dhigatid oo OneDrive kaaga haddii aad haysatid oo ku iibsan yahay amba waxa ku save gareey kartaa computerka this PC waa taaban kartaa browse na waa dhigi kartaa browse means meeshaan dhigaan rabaa inaan raadiyo mar ayaan gujinayaa inta wax ka dambeeyo waxaan leeyahay desktopkan rabaa inaan saaro ka bacdina magac ayaan iskaga bixi doonaa Excel statistics magacaas iska qaadanaya bacdama Excel accounting file kale uu yahay magaciina aan ku celiyay marabo marka desktopka ayaan rabaa inaan dhigo extensionka amba sidoo save gareynayo Excel workbook ayaan ku dhaafi doonaa hadii la yiraahdo haddaba meeshii book 2 ahay marka save gareeyo isla markiiba hore iska bedelaya kor hadaa fiirisid wuxuu isku bedelayaa Excel statistics ayuu noqonayaa horey waxaa loo isticmaali jiray barnaamijkan Excelka wixii ku horeeyay versionka 2007 wax loo yaqaan menus laakiin 2007 wixii ka dambeeyay way ka guureen nidaamkaas wixii u guureen ribbon wuxuu noqonayaa marka hal mar aad gujisid xalool ku soo baxayso markii isbedel ayaa maanayo xilliga hore waxba soo daada jir menuga laakiin hadda markii aad tabskaas kala duwan waxa loo yaqaan home tab insert tab page outline tab markii aad taabatid xalool ayaa soo baxaya xalooshan dhan ayaa waxa loo yaqaan ribbon haddaba ribbonka markii aad fiirisid wuxuu u kala habaysan yahay groupyo oo meeshaan intaan clipboard group ayaa loo yaqaanaa intaan isku xiran oo ujeedid dhinaca xariiq ayaa ka marsan intaan xariiq inta waxa loo yaqaanaa font group inta wuxuu noqonayaa alignmentiga qayb walba waxa ku jira amaro amba commands waxyaalo isku dhow qabanayo tusaale ahaan fontiga da fiirisid waxa lagu talagalay halka farta in laga maamulo fartii nooceeda bedelidii farta qaabkii looga dhigi lahaa loo jijiifin lahaa hoosta looga xariiqi lahaa farta loo waaweyn lahaa loo kala reela waxa soo dhan ayaa meesha ku jiro marka bottomada amba commandska meesha ku jiro waxyaalo isku dhow ayay qabanayaan marka waa isku group waaye waa la isku soo wada aruuriyay hal meel ayaa lagu keenay alignmentiga sidaas la mid number groupka sidaas la mid marka qayb walba da fiirisid ribbonka groupyo ayuu kala samaysan yahay groupyo walbana wixii isku shaqo qabanayaan ba isku dhadhawaay ayaa lagu soo aruuriyay si aadan u wareerin wax walba meel aysan kaaga kala fiiraarin oo qaarba meel aadan uga raadinin oo hal meel oo fudud hal mar u aadid kadibna waxa uga baahan tahay meesha aad uga heshid dhinaca da fiirisid waxa loo yaqaan vertical scroll bar waa joogjo oo la jijiidayo kan waxa noqonayaa horizontal oo jiif la jijiidayo qaybtan kore wuxuu noqonayaa wax loo yaqaano formula bar wax walba aan gelinayno meesha ay ka soo muuqanaya marka functionada u baahan tahay intana waa isticmaali kartaa functionkan caadi waa u raadi kartaa walow aniga aanan aad u isticmaalno functionka si toos ah u raadiyo dhinaca waxa loo yaqaan name box hadba godka taagan tahay magaciisa ayaa ka soo bixi doona waxyaalo kale faa'iidooyin uu leeyahay oo waqtiga kale aan ka hadli doono hadii la raado hadii aan u baahno
qaybta hoose hadaa fiirisid sheet ayuu noqonayaa oo ah warqadan aan taaganahay sheetiska waa la badi karaa haddii balaaskaas taabto warqad kale ayaa imaanayo balaaskaas hadaa taabto warqad kale ayaa imaanayo marka warqadaha intaa u baahan tahay ayaa badinaysaa oo aad kusoo diri kartaa warqadda haddaadan u baahnin right click ayaa taabanaysaa delete waa lagaa tirtirayaa right click ayaa taabanaysaa delete waa lagaa tirtirayaa warqadda darabtina soo kordhinaysaa darabtina meesha ayaa ka saaraysaa qaybtan gudaha oo sheetka ama warqadda gudaheeda waa meesha ugu muhiimsan shaqada inta ugu badan lagu qabanayo marka wuxuu ka koobnaa doonaa markii aad fiirisid wax loo yaqaano column-kan wuxuu noqonayaa joogjoogaas marka column ayaa loo yaqaanaya joogjoog iyo weliba jiif oo loo yaqaano row marka kanna wuxuu noqonayaa rows ayuu noqonayaa haddaba column-ka si aad u garatid waxay u sameeyeen magacaasna wuxuu noqonayaa xarfa alphabeticala orderka a b c d e g saas ayuu ku soconaya markuu dhammaado haddana waxaa bilaabanaya laba xaraf saddex xaraf afar xaraf saas ayuu ku soconaya marka column-kan oo dhan haddii aad fiirisid waxaa loo yaqaanaa column b wuu iska soconaya ilaa hoos ayuu gaarayaa aad u soconaya aadna uu dheeryahay kaas marka wuxuu noqonayaa column-yada rowiska asagana sidaas lamid ah waxay u bixiyeen magacyadaasna waxay ka dhigeen nambaradii 1 2 3 4 5 hadda rowgan kala 5 waay wuu iska soconaya aad u dheeryahay waa socodsi kartaa saaxiibo marka kuwaasna waxa loo yaqaanaa rows haddaba column-ka iyo rowga way istaabanayaan meesha iska taabanayaan meel walba iska taabtaan meesha iska taabanaya waxa loo yaqaanaa cell ama god ayuu noqonayaa waana waxa ugu yar ee barnaamijkan Excel-ka waana meesha data information lagu qorayo hadhowna analysis markaa sameynayna oo ka soo baxayo marka waxa loo yaqaanaa cell marka kan wuxuu noqonayaa god ayuu noqonayaa kan wuxuu noqonayaa god kana god ayuu noqonayaa marka cell-ka amba godka dabcan magac ayuu yeelanayaa magacana wuxuu ka imaanayaa istaabashada column-ka iyo rowga hadda godkan oo kale hadda waxa loo yaqaanaa kor hadaa fiirisid waa c dhinacan bidix hadaa fiirisid rowgana 6 ayuu noqonayaa marka godka waxa loo yaqaanaa c6 ayaa loo yaqaanaa midkan kale hadaa imaadid wuxuu noqonayaa e4 marka god walbaba address amba magac ayuu wataa magacaasna wuxuu ka keensanayaa column-kii rowga istaabashadooda kan oo kale hadaa istaagna waxa loo yaqaanaa b aida ayaa loo yaqaanaa marka haddii aad fiirisid bida wax yar wuxuu sameynayaa xariiqdin aqdar ayuu hoos ka marinayaa harna uu saaraya 8 sidoo kale markii aad god kale imaadid d6 ayuu noqonayaa markii isbedel yar waa dareemaysaa haddii ay kugu adag tahay inaad meelahaas fiirisid meel yar ka fudud ayaa jiro la fiiri kara namebox-ka ayaa maanaysa namebox-ku wuxuu ku sheegayaa godka aad taagantahay magaciisa kan oo kale haddii hadda aan taaganahay waa c4 kan haddii aan imaano waa f4 kan haddii aan imaano waa e2 koo kaloo hoose haddaan iska imaada wuxuu noqonayaa d13 namebox-ka faa'iidooyinkiisa ayuu ka mid yahay godka taagantaha magaciisa ayuu ku sheegayaa haddii aan u baahannahay god inaan hal mar aan ku boodno tusaale ahaan f2 alif haddii aan u baahanahay meesha ayaan ku qorayaa inter ayaan taabanayaa horey wuxuu uga boodayaa godkii aan u baahnayn marka qaarkood waa laga yaabaa godad gaar inaa u baahan tahay inaa hal mar u aadid godkina aad addresskiisa ama magaciisa haysid korle ku qoraysaa inter ayaa taabanaysaa horey ayuu ka aadayaa waxaan rabnaa in aan hal mid isla fahamno warqadan waxa loo yaqaanaa sheet warqadan kale wuxuu noqonayaa sheet kale warqadan wuxuu noqonayaa sheet kale marka warqadaha markaa fiirisid hadda inta rabtida abuuri kartaa warqada oo warqado walba waxa rabtaa data daara inaad ku sameysid qaybaha soo socdana sidaas ayaan u isticmaali doonaa haddaba warqada sidan kuma heli kartid waxaa u baahan tahay warqadii inaad magacaysid marka warqada aad magacaynaysid right click ayaa taabanaysaa inta wax ka dambeeya rename ayaa leedahay rename markii aan taabto wuxuu sameynayaa markii wuxuu isugayaa magacii inaan u bixino kan waxaan u bixinaynaa intro oo introduction aan ka wadno marka entr markaan qoro inter haddii aan taabto magacii hore ayuu ka qaadanayaa midkan ku xigo right click haddii aan dhaho kadibna rename haddii aan dhaho statistics haddii aan dhaho oo magacaas aan u bixiyo amba stat aan kusoo gaabiyo inter aan taabto horey wuxuu ka qabsanayaa magacaas aan u bixiyo midkan kale haddii aan rabo inaan magaceeyo right click rename waa dhigi kartaa double click oo boobsiisna waa taaban kartaa si aan magaca ugu bixino kana waxaan u bixi karnaa basic haddii aan u bixiyo basic oo inter aan dhaho marka wuxuu yeelanayaa kulligood magacyada aan u bixiye warqada iyo magaceeda waa la kala rey karaa right click inta wax ka dambeeya imaanaysaa tab color kadibna waa kala reynaysaa kaasoo kale guduud ayaan ka dhigaa right click tab color inta wax ka dambeeyana waxaan ka dhigaa color kale horeysaan usoo aragnay warqada dee u baahanta waa iska tirtiri kartaa right click ayaa taabanaysaa inta wax ka dambeeya delete ayaa leedahay hawada ayuu ka saarayaa mana soo laabanaya warqadii la tirtiraa
marka hal mid inaan fahmno muhiim ayay noqonaysaa. warqadan waxaa loo yaqaan intro, dabcan waxaan rabnaa ayaan kusoo qori doonaa. start waxaan rabnaa ayaan ku qoraynaa. warqadan way kala madax banaayeen, mid walbaba dad gaar ayaa ku qoranaysaa, si gaarna waa u maamulanaysaa. warqadaha markii la isku wada geeyo waxaa loo yaqaanaa workbook ama excel file, waana excel statistics. marka warqado kala duwan ayaan ku duubanaynaa filekan file weyn ayuu noqonayaa, waa sida buug oo kale warqado badan uu ka kooban yahay. marka buugga weyn karbad ayuu leeyahay, kadibna gudihiisa waxaa ku jira warqadihii kala duwanaay. marka buuggaas weyn magac ayaa u baxsanaysaa, intaa wax ka dambeeya warqado walbana si gaar ah ayaa u maamulanaysaa. sidaas la mid ah excel filekan oo dhan wuxuu noqonayaa excel statistics, laakiin warqado kala duwan ayuu ka koobnaa doonaa. warqado walbana wax gaar ah ayaan ku diyaarinaynaa, ana ku qoranaynaa. haddaba markii aan imaano excelka gudihiisa iyo weliba waxyaalaha aan ku qori karno, excelka daatooyin kala duwan ayaa lagu qori karaa. haddii aan ku hormarno magac oo kale haddii aan ku qorno ama qoraal oo kale haddii aan ku qorno oo aan taabto, wuxuu samaynayaa qoraalka godka ayuu soo galayaa. intaa wax ka dambeeyana wuxuu ku dhejinayaa dhinaca bidixda. marka laamitigiisa wuxuu noqonayaa qoraalka dhinaca bidixda. haddii aan meesha magac kale aan ku qoro oo aan meeshan xuseen ku qoro inter aan dhaho, sidaas lamid ah qoraalkana wuu ku qormayaa, dhinaca bidixdana wuu ku dhegayaa. marka data typeka qoraalka wuxuu iska noqonayaa text, dhinaca bidixdana wuu ku dhegayaa. haddii meeshaan nambara aan ku qoro, aan ku labo aan qoro inter aan dhaho, nambarada sida caadiga ah dhinaca midigta ayuu ku dhegayaan, waana data typekiisana number ayuu noqonayaa. laakiin alignmentigiisa midigta ayuu ku dhejinayaa barnaamijka Excelka, si aad u fahamtid waxaan number inuu yahay. haddii meeshaan number kale aan qoro 34 aan qoro inter aan dhaho, midigta ayuu ku dhejinayaa. 12 haddii aan qoro inter, midigta ayuu ku dhejinayaa. 9 haddii aan qoro, sidaas la mid ah. haddii meeshaan taariikh aan ku qoro oo aan taariikhda maanta oo kale aan qoro, waxay noqonaysaa bisha 8aad 29keeda 2022. inter markii aan taabto taariikhda sidaas la mid ah, godka xoogaa waa kala bixinayaa, wuxuu ku dhejinayaa dhinaca midigta. waa taariikhda ayada naftigeeda waa number, waqtigeedana ka hadli doona haddii la raado. waxyaalaha ku qori kartid waxaa kamid ah saacadii oo kale. haddii aan 2 saac subaxnimo aan qoro 8am oo inter aan taabto, asagana waa number, saacada dhinaca midigta ayuu ku dhejinayaa. waxyaalaha lagu qori karo godka waxaa kamid ah true false oo ayagana aan arki doorno oo loo yaqaano boolean amba logic. markii true aad qortid farta wuu weynaanayaa, dhexda ayuu ku qorayaa. false haddii aan ku qoro farta wuu weynaanayaa, dhexda ayuu kasoo muuqanayaa. haddii qalad oo imaado, tusaale ahaan number haddii aad u qaybisid 0, waxaa imaanaya wax loo yaqaano indefinite oo ah calaamadda yareeda wareegsaneed. inter markii aan taabano wuxuu soo tuurayaa qaladkaas. dabcan excelka ma keeni kara calaamadaas indefinite-ka, laakiin wuxuu sameynayaa, wuxuu ku sheegayaa inaan number 0 u qaybinaysid, jawaabtaasna aanan la heli karin ama la gaari karin. marka wuxuu sameynayaa qaladka far waaweyn ayuu ka dhigayaa, dhexdana uu kasoo muuqanayaa. haddii aan intaa isku soo koobno, numberka dhinaca midig ayuu ku dhejinayaa, qoraalka dhinaca bidix ayuu ku dhejinayaa, taariikhdii saacadda waa nambaro dhinaca midigta ayuu ku dhegayaan, true falsiga oo booleanka dhinaca dhexda ayuu kasoo muuqanayaan, qaladka sidoo kale asagana dhexda ayuu kasoo muuqanayaa.